السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ميل كاستياس جوتان كسر دوادا برنامجك فقلة حيارة هذا ومالك كاستو سنة وحان إجنا إنت بدن عن سوق هذنا وركا ودن بكل مدى العياري مالمها سبتدي وحدا أيانو سيجار إجدونا سيبا وحان عوج صارنا EPL كأهنا كانوا ودا وشاب بدن عالم كيا حتى وحان مودين رونالدو ديبو صلابتي رونالدو يا كمد عيارتو دو ونكسن عالم وحان مودين منك إن دا وشدا المغطي إن بقول كيبا ay hadda noqotay boqolkiiba 200 runtii waxaan eegi doonaa kulamada weyn oo la ciyaaray si waxaanu diradda saari doonaa the big 6 kooxaha weyn ayaanu eegi doonaa natiijooyinka ay gaareen iyo waliba xagga kala horeynta miiska horyaalka Premier League aad moodayno isbedel ku yimaaday runtii ayaan soo kale tafaaqilaad ku sameyn doonaa haddaad nagu cusub tahay maatay subscribe noo sar hadda naga mitayna like nagu dhiirageli saan helo saaco wanaagsan sida adiga kale tia haddii aan ku bilaawno kulanka ugu horeeya la ciyaaray maalmaha Sabtida saacadu markay tahay 2:30 daqiiqo oo duhurnimo ay wuxuu dhaxmaray kooxda hogaaminaysa horyaalka EPL ka 3 toddobaad ee la soo dhaafay Tottenham Hotspur iyo waliba Crystal Palace qaybtii hore ciyaartu waxay ku soo dilaatay Ebery qaybtii labaad markii la soo laabtay ayaad moodaa in qalad uu galay ciyaaryahan Tanganga oo la siiyay kaarka casaanka moodaa in rajada tababare Nuno Espirito Santos ay noqotay runtii mid aanan meel loo socon runtii Wilfred Zaha ayaa gool kulaad u dhaliyay kooxda hogaamiyo tababare Patrick Vieira ciyaartu sida waxay noqotay hal iyo habar isla sida ciyaar ay tahay waxa bedel ku soo galay ciyaarta ciyaaryahan daayir u dhashay dalka Nigeria oo lagu magacaabo Odsone Edward ayaa 2 gool oo degdeg ka dhalay naadiga Tottenham Hotspur ciyaartu waxay noqotay 3-0 naadiga Crystal Palace ayaa waxay gaareen guushooda ugu horeysay xilli ciyaareedkan cusub soo kale tababaraha cusub ee kooxdaasi Patrick Vieira ahna laacib hore ee naadiga The Gunners ayaa moodaa inuu aad u dabaaldegay guushii koowaad ay gaartay kooxda hogaamiyo Patrick Vieira haddii aan dib ugu laabano taariikhda Patrick Vieira waa kabtaanka hore naadiga Arsenal waxaad moodaa runtii waa laacib inta badan la soo waqti wanaagsan la soo qaatay Arsenal waagooda kulanka kale aan eegayno waa kulankii labaad waa kulankii dhaxmaray naadiga Arsenal iyo waliba Norwich City inkastoo uu nahay in The Gunners saddex kulan ugu horeyso horyaalka Premier League la garaacay taariikh ahaan ma noqon wali in Arsenal la garaaco 4 kulan oo isku caawa runtii ciyaaryahan Aubameyang ayaa goolka kale ku badisay naadiga The Gunners u dhalay sida ayayna Arsenal hali ever direen naadiga Norwich City markuu u soo dalcay horyaalka EPL-ka waxaan moodaa iminka inay neeftu runtii ka yara fuqday tababaraha naadiga Arsenal Arteta ayaa soo kale filay in kulanka dambe ciyaari doonto Arsenal ay gool gaarsiin doono Arteta la wargeyska Deportivo ayaa sheegay in runtii guushan ay tahay mid hadda bilaa u ah kooxda kulanka kale oo la wada sugayo waa kulankii dhaxmaray naadiga Manchester United iyo waliba Newcastle United kulankan ayaad moodaa runtii inuu yahay kulan aad u xiiso leh oo wala sugayo maadaama uu Ronaldo kulankiisii labaad la ciyaarayo naadiga Newcastle United waana kulan runtii aad moodaa in dhammaan adduunyaha indhaha ku wada hayaan dad badan oo qabiiru ah ciyaartii hore naadiga United ayaa dhamaantooda ka soo qayb galeen kulankaasi inay daawadaan garoonka Old Trafford ayaa qaaday in ka badan 75,000 Ronaldo ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay qaybtii koowaad goolkii koowaad u dhaliyay naadiga Manchester United ciyaartuna waxay ku soo idlaatay qaybtii hore hal iyo habar ay hoggaanka ku hayso naadiga United qaybtii labaad markii ka soo laabtay Newcastle ayaa waa ay dadaaleen waxay heleen goolkii barbara ciyaartu waxay noqotay hal iyo hal ciyaaryahan Mangolo ayaana gool ku dhaliyay naadiga Newcastle hasaatee dhowr daqiiqo kadib Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisii labaad goolkii mucjisada waxaana goolkaasi ka soo shaqeey ciyaaryahan Luke Shaw ciyaartu waxay noqotay 2-0 ay United hoggaanka goolkii saddexaad ayaa waxaa sii raacay ciyaaryahan Bruno Fernandes waana goolkiisii afraad 4 kulan u ciyaaray ciyaaryahan Bruno waxaana goolkaasi ka soo shaqeey ciyaaryahan Paul Lima Pogba wow hasaatee ciyaartu sii dhamaanayso daqiiqadii shagaashanaad lagu daray daqiiqadii dheeriya ayaa ciyaaryahan Lingard ayaa sii raacay goolkii afraad ee United ay dhalisay waxaana soo kale goolkaasi ka soo shaqeey isla ciyaaryahan Paul Pogba wow waxaad moodeen halkaasi ay sameeyeen dabaaldeg la yaab leh runtii dabaaldegkaas loo yaqaana
the styles Pogba and Lingard waan dabaaldeg runtii lagu qaano labada ciyaaryahan inay sameeyeen inta badan markii ay goolasha dhaliyaan sidayna United ay 4-1 dirtay naadiga Newcastle United. Ronaldo ayaan 2 gool ku bilaabay kulankiisa ugu horeey oo safto naadiga Manchester United. naadiga Manchester City oo haysato horyaalka Premier League ayaa hal eber dirtay naadiga Leicester City. ciyaaryahan Bernardo Silva ayaan u dhaliyay goolka kaliya ay ku badisay naadiga Manchester City. tababaraha kooxdaasi Pep Guardiola ayaa sheegay in runtii ay guusha ay gaareen ay tahay gool muhiim ah in kooxdu u baahan tahay ayna u qalanto runtii inay gaaraan dadaalkii iyo waxdaradii ay sameeyeen naadiga Citizen. soo kale Pep Guardiola ayaa wax laga waday imaatinka Ronaldo Premier League ayaa wuxuu runtii Ronaldo waa ciyaaryahan aad u wanaagsan waana ciyaaryahanka ugu wanaagsan adduunka marka laga soo tago Lionel Messi soo yiri marka waan ku soo dhaweynaynaa EPL-ka. kulanka kale ugu dambeeyo aan eegayno waa kulankii dhaxmaray naadiga Chelsea iyo waliba Leeds United waana kulan runtii la wada sugayo. Chelsea ayaa 3 eber dirtay naadiga Leeds United. ciyaaryahan Lukaku ayaan halkaasi 2 gool ka dhaliyay halka goolka kale saddexaad uu dhaliyay ciyaaryahan Kovacic ayana Chelsea ay 3 eber direen naadiga Andoho Aston Villa. hilmaan hadal kuma jiro marka Lukaku ayaa 2 gool halkaasi ka dhaliyay marba haduu uu dhaliyay CR7 2 gool anigu se halkeen jooga oo runtii Lukaku uu faanay 2 goolna uu dhaliyay sida aynaad moodaa in iminka ay naadiga Chelsea ay ku jiraan kaalintii labaad inkastoo ay wax isbedeleen. United ayaan hoggaanka la wareegtay dhanka gool tirsiga moodaa in goolasha ay dhaliyeen Manchester United ay aad u badan yihiin markii loogo goolasha ay dhaliyeen kooxda kubadda cagta Blues. kulanka kale ugu dambe oo la ciyaaray maalintii cadda waa kulan dhaxmaray naadiga Leeds United iyo Liverpool waana kulan la sugayaa waxay sameyn doonaan ama jawaabtii ay bixin doonaan naadiga Reds horkacayo tababare Jurgen Klopp. ciyaaryahan Mohamed Salah ayaana gool ku hore u dhaliyay naadiga Liverpool daqiiqadii 20 waana goolkiisii 100. wow imku wuxuu noqday ama ka mid noqday ciyaartoyda dhalisay 100 gool horyaalka Premier League. imku waxay noqdeen 30 ciyaaryahan oo kaliya waxaana ka mid ah ciyaaryahan Alan Shearer, Thierry Henry, Harry Kane, Rooney, Aguero iyo Oliver Fowler iyo dhowr ciyaaryahan oo kale. Mohamed Salah ayaa imika ku biiray ciyaartoydaasi. goolkii labaad ayaa waxaa dhalay ciyaaryahan Firmino hase haatee kulankaas aad moodo inuu dhaawac xaalis soo galay. ciyaaryahan daayay runtii ciyaaranaaliga Liverpool lagu magacaabo Havertz Elliott ayaa moodaa in lugta uu ka jabay runtii. ciyaaryahan ka tirsan naadiga Leeds ayaa sida u galay si waxaana si kaarka casaanka. Elliott ayaa lala xiriiray isbitaalka. tababaraha ay kooxdaasi Klopp oo ka waramaya xaaladda ciyaaryahan Elliott ayaa sheegay in xaaladiisu iminka ay fiican tahay. jabitaan ayaa soo galay ciyaaryahanka runtii iminka waa la kabay xaaladiisu way si fiicnaanaysaa marka waxaan u rajeynayaa khayr iyo inuu ka soo kabsho dhibaatadii weyneed oo gaartay ciyaaryahan Elliott. khayr ayaan ku rajeynaynaa runtii waa wax aad loo naco in ciyaartoy hadina daayira runtii aad moodo in kulamada ugu dambeeyay Liverpool ciyaarayo uu yahay ciyaareedkan uu yahay mid aad u wanaagsan hadii leego qaabka uu ciyaarayo ay hadana ay dhaawac noocan soo gaaray runtii waa mid aad loo naco. dhanka kale goolkii saddexaad ee Liverpool waxaa dhalay ciyaaryahan Sadio Mane waana goolkiisii ugu horeeyay ciyaareedkan uu dhaliyay Mane sida ayna Liverpool ay 3 eber jireen naadiga Leeds United. waxaana xasuusbay in kulankaasi qaybta dambe soo galay ciyaaryahan James ay naadiga Leeds ka soo gateen naadiga Manchester United adduundan 25 milyan. iminka cagayo dalka Tiraniga iyo waliba the special one. wow tababaraha naadiga AS Roma Jose Mourinho ayaa calayto u ahayd kulankiisii 1000 games uu tababaro u ah guud ahaan haddii aan isku dadaro inkastoo nahay in macallin Jose Mourinho soo maray dhowr kooxood oo ka dhisan meelo kala duwan sida Premier League sidoo kale dalka Portugiiska Talyaaniga aan dhahno Spanishka marka waxa calayto u tahay kulankiisii 1000 uu macallin ahaa. marka waxaan moodaa in ciyaartu ay qaybtii lagu tagay 90 daqiiqo ay ku soo dilaatay 1-1 balse daqiiqadii dheerigaad moodaa in kooxdiisu ay heshay gool. wow runtii waxa uu yiri waxaan tilmaamay inaan jiro 58 sano waxaan u orday sida cunug jiro 12 sano runtii habeenku calayto waxa ay habeen aad u wanaagsan sportiga.